aynu ka horeynay buuq ayaa hareeyay shirkii igad ee ka furmay magaalada jabuti ee caasimada dalka jabuti xilli khudbado xasaasi ah halkaasi laga jeediyay Kenya ayaa halkaasi dalabyo culus geysay halka Soomaaliyana ay ka soo horjeesatay koorinta uusan furmin shirka waxaa jirtay buuq hareeyay oo ay madaxda Soomaaliya iyo Kenya isku maandhaafeen madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa soo jeediyay in qadiyada Soomaaliya iyo Kenya marka laga hadlayo saxaafadda dibadda loo saaro codsigaas oo shirkidoonka igad ay soo gudbiyeen isla markaana loo soo bandhigay guud ahaanba wadamadii ku sugnaa fadhigaasi oo Soomaaliya ay kamid tahay balse madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taas ganafka ku dhuftay sheegayna in warbaahinta ay goobjoog ka noqon doonaan shirka dhammaan inta uu socdo dib u dhac ayuu sababay xalinta arintaasi awgeed oo maanta barqadii uu ahaa in shirka uu furmaa saatee dib u dhacaasi saameyn xoogan uu yeeshay abaare labadii duhurnimo ayuuna shirka furmay iyadoo khudbadaha inta badan looga hadlay sida coronavirus loo xakameeyay gobolka sida dagaalkii gobolka Tigreega loo fuliyay iyo qasaarooyinka ka dhashay xogayaha guud ee igad wakone gabayahu ayaa khudbad uu furitaanka ka sheegay waxa uu dalalka ku boobay igad u sheegay inay isku xirmaan isla markaana la doonayo in ay midnimo muujiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isna khudbad qaatay ayaa martigelinta shirka iyo madaxda inuu dalkiisa ku soo dhaweeyay kadib waxa uu sheegay in mar walba isu tanaasul ay tahay mid aad u muhiim ah taasi oo loo fasirin karay khilaafka Kenya iyo Soomaaliya in si dadban uu uga hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Abdallah Hamdok ayaa sheegay in igad mar kasta u taagan tahay walaalnimo la abuuro aan mudnayn kala tag in la sameeyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay in qadiyada Soomaaliya ay tahay mid biyo kama dhibcaana soo najeediyay xadgudubka Kenya ee dalkeena ay ku hayso ashtakadaas oo igad loo garar naqsanayo maadaama iyagu ay yihiin kuwa Afrikaanka inta badan xukuma dhinaca Kenya ayaa muujisay in Soomaaliya ay ku degdegtay xiriirka walaalnimo ee ay jartay iyo mid diblomaasiyadeed isla markaana shacabka Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo walaalo ah oo loo baahan yahay xilligan inay iska kaashadaan sidii ugu yaraan loo dareemi lahaa dhinaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka argagixisada in garab weyn ay iska siinayaan 6 months ago the peace agenda in IGAD moved another step forward when the presidents of Somalia and Somaliland held talks in Djibouti under the patronage of our gracious host President Ismail Gille and Prime Minister Abiy Ahmed xogayaha fulinta ee urgoboleedka igaad Dr. Wakone Gabiyahu oo hadal ka jeediyay madaxweynka igaad ee xadda 20 Diseembar ka furmay dalka Djibouti ayaa sheegay in wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay Djibouti ay xaqiijiyeen awoodda urgoboleedka igaad u leeyahay uu isagu xaliyo dhibaatooyinka ka jira dhexdiisa Dr. Wakone waxa uu sheegay in wada hadalladaasi ay hoggaanka u hayeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dhinaca kale waxa uu xambaliyay jidka Mooyaale ee isku xidhaya Kenya iyo Itoobiya oo ay dhawaan xadhiga ka jareen madaxweynaha Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya isagoo sheegay in jidkani uu ficil u rogayo higsiga igaad ee ahaa isdhexgalka gobolka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo hor leh ka dejisay gobolka Gado iyadoo warar kala duwan halkaasi ay ka soo baxayaan wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay ku daabushay ciidamo hor leh halkaasi xilli wali ay cirka isku shareerayso xiisada ka dhaxaysa dowladda Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada laga dejiyay Gado ayaa la soo warinaya inay isugu jiraan military iyo qaar kamid ah koofiya casta madaxtooyada kuwaasi oo kuubaysan hubka fudfudud iyo gaadiidka dagaalka waxa hogaaminaya ciidamada laga dejiyay Gado taliye lagu magacaabo Liibaan Xasan Cali sida ay la wareeyay xog ogaal ay warbaahinta gudaha u sheegeen arintan ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dab ku sii shidaysa xiisada ka dhex taagan dowladda Soomaaliya iyo midda Kenya iyadoo sidoo kale ay sii horinayso xiisada dhinaca gobolka ka taagan ee u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo ku andacoonaya in doorashada aan laga qaban karin halkaasi inta ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin gobolka Gado dowladda federaalka ayaa iyadoo wali waxa ay ka sii madax adeegaysaa gacan ku haynta gobolkaasi in Jubbaland dib ay ugu celiso iyadoo ciidamadii dambe ee iminka la geeyay gobolkaas ay sii xoojinayaan tiro ciidamo ah oo tan iyo bishii Maaj dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabuleysay gobolka Gado xiisada gobolka Gado ayaa u muuqata in ay sii lixaadsanayso iyadoo baaqyo nabadeed horay la isugu dayay in la hirgeliyo ay suurgal weysay oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinaca Jubbaland go'aanadooda ay wali ku wada dhagan yihiin waxa kale oo xiisadan qayb ka noqonaysa carqaladaha ku gadaaman in doorasho soo socota ay si nabadgelyo dalka uga qabsoonto iyadoona tani dad badan ay ku tilmaameen in meel fog ay ku sii ridayso hamiga dimuqraadiyadda ee Soomaaliya ay kaga duwneed wadamada kale ee Afrika marka loo kaco xagga doorashooyinka waxaana sidoo kale soo baxaya in arintan cabsi xoogan ay ka muujinayaan dadka ku nool gobolka Gado oo qaarkood bilaabay kuwa ku nool beled xaawo in si ayar ah ay halkaasi isaga barakacaan si saameyn aysan ugu yeelan haddii dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka Jubbaland ay fooda isdaraan
isla wararka Jubbaland ee xasaasiga ahna hadii aynu sii eegno daawadayaal Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maamulkiisa waxa uu muujiyay in wax lug ah uusan ku lahayn xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya ay u jartay xukuumadda Nairobi Abdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ee sida weyn ay u baadi goobayso dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isaga u la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee PPC-da wuxuu cadeeyay in wax lug ah aysan ku lahayn Jubbaland xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya ay u jartay dhinaca Kenya ay tahay dawlad darisna la ah oo walaalo aynu nahay wax dhibaato ahna aysan kala dhaxeelin shacabka Soomaaliyeed laakiin dawladda Soomaaliya iyo shakhsiyaad ay xiriirka u jareen Abdirashiid Janan hadalkiisa waxa laga dhadhansaday daawadayaal in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wali uusan waxba ka bedelin mowqifkiisa siyaasadeed ee la xiriira dhinaca Kenya maadaama dawladda federaalka Soomaaliya shalay ay ku eedeysay in Kenya ay hubeynayso jabhad gaar ah jabhadaasi ayaa loo arki karaa inay tahay ciidamada gaarka ah ee Abdirashiid Janan uu ku hayo Banyole iyo deegaano kale oo ka tirsan ismaamulka Mandera iyadoo loo arko ciidamadaasi in qayb ka noqon karaan dagaal culus oo ay la galaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku daabulayso qaybo badan oo kamid ah gobolka Gado